Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada dhaqankaab iyo sheeko kale oo wacyigelina. Waxaa meel ku noolaa faamili ka kooban inan aabihii iyo hooyadii iyo awowgii. Faamiligu waxay lahaayeen beer iyo dukaan ay ku iibiyaan khudradda ka soo baxa beerta. Beerta waxaa ka shaqayn jiray ninka weyn, halka inanka yar uu ahaa mid iska hurda wakhtigiisa inta ugu badan. Marmarka uu firaaqada hayana la soo ciyaara asxaabtiisa. Subax kasta inanka yar aabihii ayaa kiciya, waxa uu ku dhahdaa kaalay dukaanka hay ama beerta ila soo qod. Inanka yar waxa uu ku dhahdaa maya aabbo, oon hurdayaa, berri ayaan soo kici doonaa, aan kula shaqayn doonaa. Marka berritadii la gaadhana sidii si leeg ayaa uu ku dhahdaa maya, berri ayaan kula shaqayn doonaa, isaga oo macaansanaya hurdada. Waxay sidii ahaata waxa ka soo wareegay wakhti dheer. Inankii yaraana waxa uu noqday nin weyn. Maalin maalmaha ka mid a aabihii waxa uu baxay safar dheer oo qaadanaya dhowr sano. Dhammaan mas-uuliyaddii xaafaddu waxay fuushay inankii yaraa oo markaa ah isaguna nin weyn. Hase ahaatee ma garanayo dhan uu ka bilaabo hawsha, waayo markii uu jaaniska haystay uu ka baran lahaa cilmiga aabihii ma uu ahayn mid ku dadaalo, waa uu iska seexan jiray. Inankii yaraa sidii caadada u ahayd waxa uu iska soo kacay xilli barqadh dheer ah. Waxa uu yimi beertii, waxa uu qodqoday beertii, muddo ayaa uu waday beertii iyo dukaankii. Dhammaan ganacsigii xaafadda waxaa ku yimi hoos u dhac aad u weyn oo laga dareemayo. Reeraha u dhow ee jaarku waxay ahaayeen qaar ku sheekaysta oo idhaahdaa markii uu ka tegey ninkii meesha maamuli jiray, inankii yaraa waa uu dayacay hawshii lagaga tegey, kuwaasoo ka xaraabaysta kana maadsada. Inankii yaraa waxa uu yimi hooyadii, waxa uu ku yidhi xaggee baan hooye wax ka bilaabaa. Hooyadii oo ogeyd inaanu aabbihii ka baran wax cilmiya, waxa ay ku tidhi hooye waxaad u tagtaa awowgaa, waxaanad kala tashataa sidii aad ganacsiga iyo wax soo saarka xaafadda aad ku wadi lahayd, aad ugana dhigi lahayd mid guulaysta. Inankii yaraa waxa uu yimi awowgii, waa uu salaamay, waxa uu ku yidhi awow waxaan kaa doonayaa inaad ila taliso, waayo wax soo saarkii xaafadda dhammaan waxa ku yimi hoos u dhac weyn oo laga dareemayo. Awowgii waxa uu ku yidhi dadaal oo dantaadana garo. Subaxii waxaad kacdaa salaada subax, intaad tukato ku kac beerta oo qod, geliga dambana ka shaqee dukaanka oo waxaad soo dhigtaa midhaha aad ka soo gurtay beerta. Inankii yaraa sidii ayaa u yeelay. Isla muddo bila waxa uu dareemay inay meheraddii kor u kacayso. Muddo markuu sidaa ku waday waxa uu arkay in uu gaadhay heer iyo isbeddel weyn oo la taaban karo. Waxa uu yimi hooyadii, waxa uu ku yidhi hooye waad mahadsan tahay, waxaan u tegey awow, waxa uu siiyey talo fiican, waxaan raacay taladii. Dhammaan wax soo saarkiina kor ayaa u kacay, hadda waxaan marinayaa heer fiican. Waxa uu haddana ku soo noqday awowgii si uu ugu mahad celiyo. Waxa uu ku yidhi awowgo talada adigoon qaatay, heer fiicanna oo ku gaadhay taladaadii, maxaad maantana igula talin lahayd? Awowgii waxa uu ku yidhi waxaan kugula talin lahaa waxaad maanta qaban karayso berri ha u dhigan. Dii ayaa uu wiilkii yaraa ku noqday mid guulaysta kana soo baxa dhammaan mas-uuliyaddii ka saarnayd faamiliga. Halkaa waxaynu ka dareemaynaa marka aynu qaadanno talada waalidka iyo marka aynu ka tagno farqiga weyn ee u dhexeeya. Waad ku mahadsan tahay daawashada fiidiyowgan. Fadlan sabskaraib saar si ay kuu soo gaadhaan muuqaalada cusub, una sheer garee asxaabtaada. Mahadsanid.